gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane senator soo dhowow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرين قدوبيها عصب قدوبيه كحيانك كواد قدوبيه هوريه سنة الرضا قدوبيه دورسويكا سنة الرضا لدورتي أما أنه سقراها نهاي ما تتصرفتا سلاكيشا ميدياها إذا كامل قال أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halka inaan uga mahadnaqo senatarada aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee codkooda la siiyay ee maanta la siiyay kalsoonidoodii inaanu hogaamino afarta sane soo socota haddii la yiraahdo. waxaan kaloo rabaa inaan ilaaho intii iyana aan codka la siin iyana waa mahadsan dhammaantiin isku mid baynu nahay bayna kala guulaysan waa wada guulaysanay waxay la tahay waxaan leena ka rabaa waxa weeye afarta sane soo socota haddii la yidhaaho haddaynan sabab ku badarintee mala in haddii la yidhaaho in haddii laha yidhaahdo dalkan shuruucdiisa la dejiyo innagu waxaynu nahay sharci dejin sharciga lagu dhaqmo waxaynu hormuud u nahay hadda baarlamaankii federaalka ee aqalka sare iyo aqalka hoose oo dhowaan malanyaro bariis dooran doona dabadeedna madaxweyne la dooran doono waxaynu rajaynaynaa dowlad dalka dejisa oo nabdoon oo xasiloon inay dalka ka dhalato dhammaantiin waa salaamantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.